Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Dhegeysta xanuun ma ka dareentaa meesha sawirka ka muuqdo? Furaarsiga iyo isqalloocinta ma ku dhibtaa? Xanuunka dhinaca hoose ma u faafaa sida sinta ilaa barida? Istaaga badan iyo socodka ma kaaga sii daraa? Subaxii markaad soo toostid ma dareentaa in dhabarka culays kaa saaran yahay ama lagaaga dhagan yahay? Xanuunkan ma u malaysay kaliya xanuun markii aad isbaartayna cillad ma lagugu sheegi waayay? Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iidayso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka East End. Astaantan waa nooc ka mid ah dhabar xanuunka, waxaana afka qalaad lagu dhahaa lumbago. Ma ahan cudur sidiisa u taagan, laakiin wuxuu tilmaan u noqon karaa cillado badan. Waxaa xanuunkan la isku arkaa haddii cillad ay ku timaado qeybaha kala duwan ee dhabarka, sida murqaha, seedaha, carjawda, neerfaha ama ricirrada laf-dhabarta. Waxaa kaloo lagu qaldi karaa kelyo xanuunka maadaama kelyuhu ay ka hooseeyaan muruqaas, waana cabashada ugu badan ee dadka isbitaalada keenta. Astaamaha la dareemo waxaa ugu badan xanuun markii muddo la fadhiyo, markii culays la qaado, markii la fooraarsado. Xanuunku wuxuu u faafaa dhinaca sinta iyo murqaha barida ee lagu fadhiisto. Sidoo kale waxaa dhabarka laga dareemaa tog-tognaan markii lasoo tooso subaxii. Waxaa dhici karta in xanuunka hoos u dhaadhaco oo lugta dhinaceeda aado, xaaladaas oo ah cillad neerfo loona yaqaano sciatica. Fadlan ku laaw casharkii aan maalin dhaweyd kaga hadlay arrintan. Dhabar xanuunkan wuxuu badanaa ka dhashaa jug ama dhaawac. Mararka qaar qofka ma ogaan karo, mana xasuusan karo inay jug gaartay. Qaabka jugta u saameyn karto dhabarka waxaa ka mid ah in muruqa uu rooro, kogo, bararo ama kala jiidmo. Tan waxay badanaa ka dhalataa shaqada badan ama jimicsiga sida qaldan loo sameeyo. Midda labaad waa carjawda oo booskeeda ka baxdo, sibxato ama dillaacdo, taasoo keeni karta in neerfaha xangulaha cadaadis saarmo, kadibna xanuunka laga dareemo murqaha dhabarka. Haddii ay cilladan jirto, daawada muruqa iyo duugista waxba kuu tari mayso, maadaama cilladan ay neerfo salka ku hayso. Tan waxay badanaa ka dhalataa jugta iyo dhaawaca. Waxaa kaloo badanaa lagu arkaa dadka qaba xanuunada lafaha ku dhaca, sida riixa, rheumatism-ka iyo lafo-beelka. Sababaha kaloo keena waxaa ka mid ah fadhiga qaldan, ku jiibsashada joodariga jilcan, cayilka, dhalmada isku xigxigta, dadka xirta kabaha taakada leh, jimicsi la'aanta, iyo in si qaldan ah wax u qaadid. Cilladan waxaa kaloo la dareemaa hadduu jiro caabuq kaadi mareenka ah ama kelyuhu cillad qabaan sida dhagxaanta kelyaha gala. Laakiin xanuunka cilladan qaybta hore ayuu u soo faafaa oo dhinaca kaadi heesta ayuu aadaa meesha xanuunka murqaha dhabarka u faafo sinta iyo barida. Waxaa kaloo cilladan la dareemaa haddii xubnaha taranka dumarka cillad ku timaado sida minka, tubooyinka iyo ugxan-sidayaasha. Waxaa kaloo cilladan la dareemaa hadduu qofku qabo kansarada laf-dhabarta u faafa sida kansarka borostatada ee ragga ku dhaco. Sidee lagu ogaan karaa cilladaha keena xanuunkan? Waxaa badanaa lagu ogaadaa in bukaanka la wareysto, la weysiteeyo, kadibna loo diro sawirka ku shaqada leh qaabka loo hayo. Sidee loo daaweeyaa cilladan? Maadaama dhabar xanuunkan bulshadu aad ugu badan yahay, lana qiyaaso 90% in qof walba mar uun dareemi karo noloshiisa, waxaa lagu taliyaa inaad isla tacaashid 72 saacadood ee ugu horreysa inta aadan dhakhtar u tegin. Waxaa samayn kartaa talooyinkan: muruqa iska kubay, isdaliig, biyo qandac ah ku qubayso, qaado xanuun baabi'iye, dhabar u jiifo. Haddii aadan dhabar u seexan karin, u jiifo dhinac, jilbahaaga soo laabo, dhexdoodana barkin geli. Haddii 3 maalmood kadib xanuunka ku sii hayo, markaas dhakhtar la xiriir si laguu baaro, talada kugu habboonna laguu siiyo. Laakiin haddii aad isku aragtid waxyaabahan soo socda, fadlan si degdeg ah u gaar dhakhtarka. 1. Dhabar xanuun si kadis ah kuu qabtay kaasoo wata kabuubyo ama tabardari laga dareemo lugaha. 2. Dhabar xanuun wata in kaadida ama saxarada kontarooli weysid. 3. Hadduu dhabar xanuunkaaga wato qandho ama qarqaryo. 4. Haddii dhabar xanuunka isku aragtay shil ama dhicitaan kadib. 5. Hadduu miisaankaaga aad u lumayo oo aad caatoobaysid, dhabarkana lagaa hayo. Halkaas ayaan kaga baxayaa casharkeena maanta. Wixii su'aalo ah fadlan ku soo qor qaybta comments-ka iyo muuqaalkan. Waana mahadsantihiin.